muuqaalku waxa uu ku bilaabmayaa maalin maalmaha ka mid ah Xajaaj ayaa u safray magaalada Makka. intii wadada uu ku guda jiray ee safarkiisa ku guda jiray waxa uu la kulmay koox ciidan ah oo ka mid ah dawladda Suubaariyiinta ee waqtigaas talinaysay. dawladda Suubaariyiinta kooxdan ka mid ah waxay ka qaadeen faraskiisii Xajaaj mar dambe ayuu la kulmay askari ka mid ah askartii faraska ka qaaday, waxaana uu weydiiyay askarigu magaciisa iyo waxa uu qabto. Xajaaj waxa uu ku jawaabay, magacaygu waa Xajaaj, waxaan ahay macallin quraan. askarigii ayaa ku jeesjeesay hadallo aflagaadana ku yidhi. Xajaaj ayaa la dagaalamay askarigii, waxaana uu ka qaatay faraskii uu watay. Xajaaj waxa uu ku laabtay magaaladii Daa'if isagoo aad u cadhaysan. muddo ka bacdi waxa uu yimi ciidankii dawladda Suubaariyiinta iyagoo ku eedeynaya inuu soo dhacay faras. Xajaaj ayaa ku jawaabay, kani waa beddelka faraskaygii aad iga qaadeen. taliyihii ciidanka ayaa ku yidhi, been ayaad sheegaysaa Xajaajow. Xajaaj ayaa ku yidhi, adigaa beenaale ah. taliyihii ciidanka ayaa jeedal wejiga kaga dhuftay Xajaaj. taliyaha ciidankuna isagoo aad uga hanjabaya ayaa uu ka tegey. maalinkii dambe Xajaaj ayaa ka tegey magaaladii Daa'if una safray Al-Dushaam. waddanka Shaam waxaa markaa ka talinayay dawladdii Umayyadeed, waxaana amiir ka ahaa Cabdimaalik ibnu Marwaan. waqtigaas oo awooddeedu ahayd mid aad u hoosaysa. habeenno badan oo uu sii dhaxay, ugu dambayn waxa uu yimi magaaladii Dimashq isagoo daawanaya dabaaldeg ka dhacay magaalada. ayaa waxa qabtay koox ciidan ah oo waardiyayaal ah kana tirsan dawladda Umayyadeed, waxaana ay weydiiyeen, maxaad meesha ka qabanaysaa? waxa uu ku jawaabay, dadka ayaan daawanayay. Xajaaj waa la xidhay, waxaana loo geeyey taliyihii ciidanka oo magaciisu yahay Rawxa ibnu Samba. taliyihii ciidanka ayaa ku yidhi, halkee baad ka timi Xajaajow, maxaadse u timi? Xajaaj ayaa yidhi, waxaan ka imi magaalada Daa'if, waxaana u imi inaan kula kulmo adiga. mar kale taliyihii ayaa weydiiyey, wax xidhiidh ah miyaad la leedahay dawladda Suubaariyiinta? Xajaaj ayaa ku jawaabay, haddii aan xidhiidh la lahaan lahaa kama imaadeen magaaladeedii Daa'if. Xajaaj ayaa uga sheekeeyey qisadii ka soo qabsatay magaalada Daa'if isagoo halka ugu warramay taliyaha ciidanka. taliyihii ayaa weydiiyey, maxaad doonaysa inaan ku qabanno haddaanu nahay dawladda Umayyadeed? waxaana uu ku jawaabay Xajaaj, waxaan rabaa in laga dhigo sarkaal ciidan ama askari ka mid ah askarta wax xukunta. taliyihii ayaa yidhi, sidee ayaan kaaga dhigaa sarkaal iyadoo aanu ii ogolayn amiirka muuminiintu? waxaana uu ku jawaabay Xajaaj, aad aniga i aqbasho waxaad garan doontaa ficilka aan sameeyo, waadna i mahadin doontaa. taliyihii ayaa ku jawaabay, waxaan kuu soo weydiinayaa amiirka. sidaasi ay tahay, waxaan kaa codsanaynaa daawade inaad channelka subscribe-ta saarto, sidoo kalena aad like-ta saarto si uu bulsho badan u gaadho, lana soco qaybta labaad ee xigta.